بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وين ولا سلامي دمانتين bulshada Soomaaliyeed meel walba joogtaan casharka labaad baan geli doonaa insha Allah sida marka hore uu soo sheegay wuxuu ku saabsan yahay casharadani dadka da'da ah waxaana tahay afka Swedishka oo af Soomaaliya sidii qofku baran lahaa si dhaqso leh ama de si rafud degdega oo qofku u baahan yahay waqti badan inuu ku qaato afka Swedishku waxaana markaan ka baahida dadka badana da'da weyn ee naxwi aan soo qaadama grammatic wax la yiraahdo oo ku adeegyahay marka qof degdega u baran lahaa afka oo si rafud ugu janqaadi lahaa Swedishka afku waa muftax bulshada qofka Swedishka dhex gali lahaa marka mafaatixdaas oo badan tahay oo afka laftiisu dhinacyo badan baa loo isticmaalaa marka in qofku koobnaado maaha magaranaysaa oo marka arko inuu grammatic ku adeegyahay inuu ma baran doono waxaan la baran adduunka ma jiro marka afafka adduunka oo dhan waa isku la mid si un baa loo wada bartaa marka waxa bilaabi doona casharka labaad oo baalkii qaybtiisa koobaad tack så mycket. Tusen tack. Tackar. Tack ska du ha. Fint. Tack. Mar labaad ku socolinaya. Tack. Tack så mycket. Tusen tack. Tackar. Tack ska du ha. Fint. Tack. Tack. Mahadsan tahay. Tack så mycket. Aad baad mahadsan tahay. Tusen tack. Ku jeer ba mahadsan tahay. Tackar. Mahadsanid. taag iska duuhaa waad ku mahadinaya ama waad ku mahadsan tahay fiin taag mahad fiican marka badana dadku waxay isticmaalaan waa taag iyo taag so mike tuusan taagna waxay ku jeer baa mahadsan tahay qofku marka wax weyn ku qabto oo kale baa ku loonaysaa tuusan taag ma garata waxaanan ka filayn qofku inuu ku qabto ama macaawino badan mid baan iloobay waxa weeyaan kelmadda la yiraaho tack för hjälp taasina waxa weeyaan wax walba qofku kugu caawiyo oo inay ku tiraay tack waa ku maadsantay macaawinada waxay noqon kartaa qof alaab kula qaaday qof wax walba noqon karta qaybta labaad oo gudbana tack för maten tack för kaffe tack för idag tack för allt tack för maten waxa weeyaan marada ku soo celiya tack för maten tack för kaffe tack för idag tack för allt tack för maten waxa weeyaan waa ku mahadsantahay cuntada tack för kaffe waxa ku mahadsantahay kafeega tack för idag waxaad ku mahadsantahay maanta tack för allt waxaad ku mahadsantahay wax walba badana dadka wax dhigtaa barta Swedishka ama Sifiga wuxuu ku bilaabi karaa qofku inuu niveau A ku bilaabo wuxuu ka gudbay B markuu si macsanay macallinkii sanadka dhan wax uu wada qabtay wuxuu qoranaya tack för allt waxay bartay oo ku mahadsantahay oo kale bay noqon kartaa wax uu igu caawisay casharka soo socda qofkii markuu maalintii dhamaato soo fasal ku jira markuu si baxay ba kunay taag for dog maanta waxay bartay ama waxay qabatay waa ku maadsanta waan fahamka taag for dog qaybta saddexaad casharka qaybta saddexaad welcome varsågod snälla welcome varsågod snälla welcome soo dhawow varsågod adoo mahadsan hoo ama qof markii varsågod soo dhawow snälla fadlan weeyaan snälla wax la qortaa snälla kan jag få penna snälla waa faham snälla waa fadlan waa wax yar oo ku yar jirta naxariis fadlan qalma ka heli kara ya snälla kan jag få penna in penna oo sawiir marka waxa u gudbinaa 10 qaybtiisa afraad det var fint det var fint det var fint av dig det var snällt det var snällt av dig av dig waa dhinacaaga binoqonays af day dhinacaaga way det var fint taas waxa awaad mahadsan taas waxayd wax fiican det var fint av dig dhinacaaga wax fiican bay ka ahayd det var snällt wax ay ahayd wax fiican det var snällt av dig dhinacaaga wax fiican bay ka ahayd
marka faqradii waxaan gelaynaa casharkii baalka faqradii ugu dambeysay waxay tahay afraad iminkana wakaa u dhammaaday casharkii labaad kolley waxyaalaha un soo dhigayaana waxa weeyaan qofku inuu degdeg yar oo si yar fudud u barto af Swedishka 6 mirir bay noqon doonta fiidiyoga soo duuduubi doono insha Allah kulanka bulshada ku saabsan tahay badan qofka kelmada eriyada isticmaalayo afka Swedishkana aanu ma dhalan shalay arday baan ahaa waxba baranayay maantana waxbaan ka aqaana marka wasaa weeyaan qofku inuu si xilqaamo weeyaan wax barto oo afka isku xilqaamo aad iyo aad baad u salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah